بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الملا والله قفي عي قف بني آدم إنه يسوق سكور ربه ولقي سكور ربه متى النولا نم بدن با ما تي في أما قول الجرائد أما قول الراديو وهي ما تنا وكورة سنة ولقينا ورما بحين ولقينا تي في متجين واحد ضد كده وضع مساجد داوم بيك قاتنا عشان ده هي الله ده waxaan salaa cali markuu iska warramaad ka dambaysid calina diidin uu warramo marka wax badan oo idin sheego runtii ay idinku kordhinaysaana ma jiro waqtigiina la lumiyo maaha anu raga halkan fadhiyo waa ka wada da'weynaan u malaynaya sheekh maxamed umar mala isku dhadhownahay mustafa xaj ismaaciil haaruun baa la yidhaahdaa reer wadaadaaba ka dhashay aabahay xaaji baa uu ku magac dheeraan sheekhu ahaa awogay aw haaruun baa la odhan jiray awogay ka dambeeya aw yuusuf baa la odhan jiray reer culamo oo diin ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay waqtigii isticmaarkaanan dhashay intii aan dowladda soomaaliya dalanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabbahay allah u naxariisto 45 sannadood buu cadan deganaa 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo raggaa joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedoo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaanu walaalaanay nin qura nagaga dhashay cadan intayadii kaleba baadiyaana loo diray baadiyaanu ku soo dhalannay baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaan ku dhashay isagaan wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institutekii jarmalka ee burco ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada laydku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal laydha baan kaga baxay korontada tumaalku waa farsamo yaqaan laydh baa kaga baxay jaamacadda kadibna waxaa noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaalla magaalada burcan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo meelaha joogay dowladdii soomaaliyeed baa ay xidhay dowladda soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin inta meelooda wax ku xidhi jirtayba waan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabarjabin waa laygu xidhay jeel waa laygu xidhay weligeyna maxkamad layma taagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray calaa kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd un culammada soomaaliyeed ee waddanka degan wixii aanu ka bowsannay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana si aanu joogo un waddanka soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay wakhtigaas baan waddanka ka baxay yurub iyo meelahaasaa niman xanuunsanayo aan walaalana geeyey anigoo yurub joogaa dowladdii soomaaliyeedna dhacday ilaa 99kii baan deganaa yurub march 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada hargeysa ilaa haddana hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yihi 12 sannadood dama burciya hargeysa un baan ka dhexeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo yurub iyo meelahaan ku noqdo qaab nololeedkii soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina dimuqrasi bay ahayd dimuqrasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan
waxaan xasuustaa iyadoo 1969 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay waddada maraan baa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh saasa cirka yaale cirka iyo dhulkaa la sheegan jiray heballada jiray dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialismkuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan sistamkaa ku qanacsanayna hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidanuu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin waddankuna sidan uu iminka isaga furaya isagama furnayn diyaaradaha dibadda ka yimaada only xamaroo ka soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto isaa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd haddaan qiso idiin sheego 27 anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumaroo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkan haystee markaa waxaa kitaabkan jalaalaynka la yidhaahdo jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn waxay ahaan jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyahy oo ku daboolan habeenba labada xaashiyood aad dhigaysaad kala baxaysaa ila wuu furfuran yahay labadii baan la soo baxay habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyey timo labadiina dabayshii baa qaadatay yacni kutub ma taallo badani aad bay cidhiidhi u ahayd culimo waddanka waa deganayd laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyaro ah tahay inuu kaa boqo waayo dowladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado inuu tafsiir caama ama akhriyi jiray weliba soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha ramadaan unbaa inta badan la akhriyi jiray waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwa ama waxaasaa la akhriyi jiray calaa kulli xaal waxaan uga danleeyayaan arrintan u tilmaamaya waxa weeyaan jaaniska idinku haysataan ma oolin waaga jaaniskana in kutubtu bahalka inaad jeeb ku sidataan ku jirto meel kasta lagu iibinayo ayi kitaab aad u baahata aad helayso electronically aad shaamilo soo download garaynayso oo 12,000 oo majalladay ku jiraan yacni jaaniska sida tan ee qofku research samayn kara ee wax baxdii kara wax baadhi kara waagaa ma oolin laakiin waxa yaalay dad committed oo dadaalaya mala daacadnimana ku jirto oo inay ilaahay waxaan ugu dhowaadaan ay ku jirto marka anugu qadiyadda aan jecelu inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataane ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fudud tahay inuu qofku barto may jirin may oolin waxay ahayd wax aada u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sida aad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aada akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo intan dambena dee meelaha un soomaalidu joogto baan wax ka sheegi jirnay anigu macallin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli bana gaadhin macallinkuna deris loo dira buu soo diyaariyaa oo uu deedhigaa waana laga yaabaa wakti aanay culammada soomaaliyeed haysanin qalabka technology-ga inaanun yurub ka hortegayo wax akhriyo dad waxu akhriyay waxaan xasuustaa cajaladahan ugu badane hore ee 90yadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray waa soomaaliyeed oo norway maqaaxid Somali welfare la yidhaahdo Somali welfare organization ayaan ku yihi war 27 maalin wax maydin akhriyaayo markaasay idhaahdeen haa niman carabaha ka tegay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badna markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla aliimaan arkaan aliimaan iyo xawla alxadaara alislaamiya inaan ka warramo
nin dhallinyaraa baan aha hadal badan 2 saac iyo dheeraad baan maalin ileen 14 cashaan mar helaya markaa waxay noqotay markaa inaan 2 saac iyo dheeraad hadlo dadka markaa cajaladahaas baa soo gaadho markaas la mala ninkan sheekh weyn waa sheekh weynna marna ma noqonin laakiin uun fursad aanay jirin anigu in wax la duubo maan rabin waxaan xasuustaa waxba ha duubinaan ku idhi nin dhallinyaraa baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yihi sheekh ama fadhiyo wax akhri ama iska timi xagga dambe la fadhiista markaa waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo inaan iska tago markaasaan iska akhriyey dariskii dambaan imi maalintii dambe cajaladu sidaan iminka ay u badayn uma badnayna VHS bay ahaan jireen VHS-kana warshad baa badin jirtay keliya intay cajaladii qaadeen bay warshad geeyeen dabeetana 200 cajaladood bay ka dhigeen iyagoo meesha ku iibinayaan ugu imin cabdillaahi xuseenka ahiya la yidhaahda iyo inaan loorana la yidhaahday axmed baaruud iyo iyagoo iibinayaan waar waa sidee dee waxaana iibinaysana waxay dhahayn sheekh masaajidkaan kirada kaga bixinayna markaasaa iska aamusoo sirida masaajidkaan kirada alagaga bixiyo marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelina inaan duubo TV-na weli ma tegin raadiona weli ma tegin wadaadku su-aalaha badan uu dadka weydiinayana mala in isagu ka jawaaba bay ku fiican tahay anigu intaasaan ku gabagabaynaya wasalaamu calaykum